arrinkaas meesha uu maraayo ninkaana uusan naga daba harin cagta uu noo saaray haddana waxa ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlaya xaniyiisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aan ninkaas inaan ka hortaga aan damco waxa i soo hor istaagayo أحمد رشيد داهر على سوء إنه يهد قبيل يستحن خردو يحن ضقنا أغلى قبيل بناء آدمين وحبك أغاني حويان كلا جيرين سببتها من ير أرد اللي يرى أو أفكي سكوش قيسانيو وريا ما أدوه هوست كافر يسلها ما أدوه كبري لها ما بقول ضرورة كل لها داعي على سوء صاحبه وصدر بعلم وربا حلوك يسكوش قيسان ما حكرتها ما حكى قلبي محل هو هينسا محل قلبات هينسا وحسن نمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن ميلكستو دوليدا دافيه إذا كجوكتان halkan naga daawanaysan waa shirika production haddii aad horaan nolosii joogtay aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddii aad ugu cusban tahayna fadlan like iyo subscribe ka hanaga iloobin intaas kadib waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno video oo xalay soo duubay fanaankeenna Sharma Boy uu ka hadlayo arrimihii ka dhaxeeyay isaga iyo Daahir Cali Sow anoo ma garan karno wixii ka dhaxeeyay waxaan ku arkaynay oo kaliya social media ayagoo is haysto balse ma ogno arrinta jirta iyo sababta jirta ee dhabta haddaba xalayto waxyaalo fara badan ayuu Daahir ka qaaday misana uu sheegay oo cadeeyay fanaanka Sharma Boy waxaad ogeydeen inay isaga iyo Daahir Cali Sow in cabaar ay is haysteen ayagoo ma garanaysaa isjiitay in badan وداهر على سو كقصب شرما بوي إنه فيديو رالجين صادوه يوتيوب كشرما بوي إنه كسر حله أرمها صار محاسب هذا شرما بوي أي أنت سعدي بل أنا وصلت داورنا شرما بوي أو فيديو سجع أول حلا يو حيعرف ربنا ولو هي إني أنا مقرن يساي أوجانو بل داو شوع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالوين ميل بجوكت والسلام عليكم حواي هرت مرول بحث برنامج سيدان هذا أو حواي هذا برنامج تعلم تجاوا وحواي فن يهز وأنت أكو صاحد لين لكن وحياة بدنا وحجر ودي هذا محل كوك قصباي إن سوى هذا الشيء أو كوك كلفاء وحواي شرم بوي وحيري وحن أوجه إنه تعلم كي هي إني أنا هس قادو كليا كم أروح بدني أنا سوفريستو كاميرا هرت هذا عن أرمها قارك هاللو بس دنت عيال قصبت مرة قارد دنت عيال كوك قصبيشو بالنوع wixii ay dadku u jeedaan oo muuqdo ee arkaan oo ay maxaa la yiraahdaa fasirnaa waa gooni laakiin waxa hoose oo anaga shakhsi aan dhalinyarana haysto cid la socota barahan ama og ama ka fanaaniin xaqiiqda markii laga hadlayo fanaaniinta Soomaaliyeed waliba kuwa dalka ku sugan oo dalka joogo waxa waa intooda badan gumeysiga macnaha qaab darbiga ku jiraan ha noqdaan waxaa sax ah oo xaqiiqo ah inaan ogeyn qofka bini aadanka arrimihiisa hoose iyo waxyaalaha faraha badan haysto qofka bini aadanka waxa la dhahaa private ka macnaha waxa asaga private ku ah ku dhaco ma ogaan karno haddaan nahay dadku iska daawado dadka waxay soo duubaan social media ku jiro sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay inay fanaaniinta dalka joogo badankooda ay gumeysi ku nool yihiin talo muxuu yahay gumeysiga uu noo sheegay Sharma Boy walaanu sii wadana video qaar video laga haayo kuwa ma aragtay qolobta ka jirno oo maxaa la telefoon lagu gumeysto kuwa dad loo soo adeegsado ma aragtay oo dad ma aragtay Soomaaliya dadka joogana waxa waa xaqiiqda markii laga hadlo $20 qofka dad soo dhiibtay ku soo adeegsato qofkaas aad dhahdid dad ay ka soo wada jiro oo ku soo aadaya waxa waa muhiimada aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay horta barnaamijkeena oo socday oo bilaaw ilaa dhamaad oo waxa waaye YouTube ku saabsanaa YouTube-kii gacan inuu galo YouTube-kii inuu isoo noqdo inaan raali gelin soo bixiyo inaan hadana wax ka soo jafo waxa soo dhan xaqiiq dhab oo guud ahaan hadana naga ma hayo waxa dhabto hadda taagan markii laga soo tago qadartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa tacsidiye oo nagashay iyo xabsigii markii laga soo tago waxa waaye horta nina qalad nagu soo maagay anaga oo qaladka markuu nagu soo maagay maxaa la yiraahdaa anoo iska joogo Djibouti aqoonna aan u lahayn waxbana aysan naga dhaxaynin waxaan arkay nin iga soo hadlayo aniga maxaa la yiraahdaa oo bilaa macna dara been u jeedo oo cad ka hadlayo ninka waa marmar waa arki jiray maxaa la yiraahdaa laakiin kuma xirneen aniga
nin oo social media ku jiro uu yahay oo qabyaaladda iyo siyaasadda ka hadlay waxyaabo noocaas inuu yahay arki jiray marka arrimo iga waaweyn inay yihiin waxa soo leeyahay kulay dawlad iyo wax is afaansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxaas uma leeyahay jiray laakiin kama dambeys waxaa ogaaday nin iska madadac ah oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin dawlad aan waxba ka aqoonin qabiil aan waxba ka aqoonin because ilaa hadda qabiilka uu yahay iyo qolada uu yahay ama aqoon uma leeyahay umana maleenayo dadka uu sheeganayo inuu ka dhashay because qofka waxaa waaye dadka uu sheeganayo dad wax cisto oo dad macnaha maxaa la yiraahdaa qabiil Soomaalida kamid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dad ka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waaye oo waxa way qofkan haduu qaldan yahay qabsan karo laakiin aniga hadda waxa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah ama magaciisa qaadin oo Soomaaliya oo dhan ay wada ogtahay YouTube-kayga hadda kor gacanta u gali jiray haddaba halkaas Sharma Boy wuxuu ka dhawaajiyay in uusan inaba ha yaraatee magaciisa uusan halkan ka sheegaynin qofka asaga ah bas Soomaalidu badankooda way wada fahmi karaan waa ninkii la dhihi jiray Daahir Cali Sow marxalaasa maqaaxidii Sharma Boy baan ka soo dhaxlayaay oo gure ninkaas ay ilaa hadda food isku la jiraan waxa kale uu ka dhawaajiyay Sharma Boy ninkaas inuu uusan lahayn qabiil duqay dad iyo family lagala xiriiri karo oo looga sheegan karo oo ilaa hadda la dhihi karo bal ninkaan naga qabsada inay aysan jirin anuu ma garan karno midda ayada ah balse Sharma Boy videos ayaan iska sii wadanaynaa ama daawana bal Sharma Boy wuxuu ka dhihi doonaa waxa waa in uusan qolaba lahayn qof qol cid oo ka dhashay ama loogu dacwado uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlaayo horta aniga cid aan ka baqaayo oo ilaahay ma jirto maxaa waa daraadno waxa igu kalifay in aan aniga inta soo fariisto oo aan live inta soo galo YouTube oo aan soo dhaw maxaa la yiraahdaa apa social media tahay maxaa la waa ka baqaaya kana waa ka saaraya waxa waa aniga waxa soo wacay nin dhalinyaro ah oo YouTube-kayga hayo oo walaalkayga deeq darajo oo Kenya degan oo meeshaas joogo waxa waaye oo dad isaaminna aan ahayn YouTube-kayga asoo 8 ku maraya u dhiibay deeq darajo oo aan waxba ahayn waxna aan ka jirin waxa way gacanta ku soo qabtay copyright igu sameeyay waxa waa ku tatayay waxyaabo badan oo igu sameeyay YouTube-kayga waxa way heesaygu ii xiri jiray waxa way account igu xiray YouTube-kayga lacag inaan ka sameeyo heer ah oo i gaarsiiyay wax walbo si walaalnimo iyo kalsooni ay nooga dhaxayso oo isla marnay waxa way qof aaminay aan nafteeda aan ku aaminay waxa wixii uu ii soo diri jiray wax walba uu ii sameyn jiray okay ninkaas aniga saaxiibkayga maanta hadii uu gacan uu galo ama gacan bini aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku qasbanahay in YouTube muhiim ma ahan naftiisa ay muhiim ah Soomaali Maxamed ha ogaato ama ka dhaadhacdo aniga ku adkaysi waan ku adkaysan karay ninkaas markaan lahaa 48 saac wada kaaga saaray markuu ilaaha aan lahaa wax ayaan xaniyahaaga fuul waxa iga qaadi kartid malahan anoo Muqdisho dhax joogo oo aan cidna ka baqaynin oo aan isdheyn qabiil waxaan ogeyn inuu Daahir Cali Sow ugu hanjabay Sharma Boy inuu 48 saacadood kadib hawada uu ka bixi doono intii uusan dagaalkooda bilaabanin balse Sharma Boy arinta ayada uu ku adkaystay wuxuuna dhahay nin rag oo adoo kala ayaan ahay waxba igama qaadi kartid balse maalmo yar kadib waxa dhacday Sharma Boy inuu video raaligelin soo duubo isagoo oo leeyahay Daahir Cali Sow waxa tahay libaaxa social media Daahir Cali Sow waan ka dambeeyaa damba magtay agtaada lagu ma arkayo kaama soo hadlayo magaranaysaa saaxiibo ila wareej amal abba macaan raggeed baa tahay ma fahamtay haddaba arinta ku sababtay Sharma Boy inuu sax u calaacalo anagoo Sharma Boy ku ogeyn inuu ahaa nin xaniya adag oo maxaa ka galay ah heesaha ma dhahdaa caadiga ma dhahdaa si walba waa adag inuu calaacalo maxaa ku sababay bal arrimahaas ayaa noo soo wadaay aan sii daawano video aan aaminsaneen oo kan yahay idaarood iyo fikir ka iyo qabiil iyo inta ku jirta iyo waxaas ugu jirin xaniyahayga ninnimadeeda anoo kalsooni kale aan deeyay cidna aan deeyay ama cidaas ka dhicinaysa ugu jirin ama qofna soo marin rabina ninnimadeeda iyo xaniyahayga aan ku hadlay inuu soo waxba iga qaadi karna ogaa because fanaaniinta Muqdisho boqolkiiba 99 gacanta ugu jiraan nooca gacanta ugu jirna aniga ma ahaan ma fahamtay oo ugu soo qaldamay Djibouti ka soo bilaabo iga soo daba dhigtay waan ka aamusay shibanka ere waxyaabo badan oo ka hadlay Djibouti jooga gaaja ku dishay kan oo ka hadlay waxyaabahaas oo kasoo waa ka aamusay ilaa Muqdisho imaade waxa waaye wuxuu ilaahay farmaajo iyo maxaa uga soo hadashay arintii hadana shibanka ere wuxuu yiri show kama qayb gali kartid macna salka ii saare
wax igu kalifay marka anoo oo aan ninka aan u naageenin aan ka baqin oo aan video u igaynin oo waxban igu sameynaynin wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada kamid ah anoo garow jooga wax soo wacay deeq darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaaga shit wuxuu igu yiri ninaa bas koolay waa ilaa waxa soo wacday gabadh maskiin ah waxay u tiri gacana ugu jirnaa ninkaas haddaba arrintaa aan iga dabageeyo arrintaa qiirada faraha badan leh dhammaanteena maaragtay naga ilmeysiisay uu Sharma Boy daha ka qaaday Daraja Boy waa nin saaxiibkiisa oo gacanta ku hayay YouTube-ka Sharma Boy gabadha kale uu sheegayo waxa la Hayat Kajal Allah waxaan jeclahay inay tahay xaaska Daraja Boy ma fahanteen labada qof ee xabadda lagu hayo waa Daraja iyo Kajal sababta lagu hayo waa Sharma Boy daraadiis wuxuu yiri anuu garow jooga ayaa la soo wacay haddaba markii video weyn aan ka horreeyo laakiin ninka arrimahaas oo dhan ka dambeeyo waxaas oo dhan sameeynayo waa kuma waa Daahir Cali Sow ninka la leeyahay fanaaniinta kulligu guumeystaa yaa waa Daahir Cali Sow ninka soo wacay Sharma Boy oo yiri maxaad hees ugu qaatay madaxweynaha Soomaaliya showgana kama qayb gali kartid waa Daahir Cali Sow fahad marka guumeysiga lagu sheegayo wuxuu yiri fanaaniinta qaar wuxuu ka hayaa videoyaan kuwa qaar wuxuu u hanjabaa telefoonada maxaa sababay haddaba inuu ninka gacanta ku hayo fanaaniinta Soomaalida oo dhan kuwa qurbaha jooga kuwa Kenya jooga kuwa Ethiopia jooga kuwa Soomaaliya jooga maxaa sababay Daahir Cali Sow haddaan ni baro wuxuu ahaa nin wariye ah waxa waayo oo kale waa nin abwaan ah waxa lahay gaalka dil xaqiisana si wuxuu yahay sheegnaa waxa kale uu yahay nin iska social media iskaga jiro laakiin waxaan hubaa Daahir Cali Sow inuu yahay qabiilista xun qarandumiyo xun doqonan aqli qabin bini aadanimo waxba ka aqaanin xawayaan kala jirin ah sababtoo ah min yar oo dhalinyaro ah oo afkiisa ku shaqaysanayo wariyaa ma adigu hoosta ka fariisan lahaa ma adigu ku bari lahaa ma $100 ku dhil Daahir Cali Sow saaxiib uu soo dirbaan walba xoogiisu ku shaqaysan maxaa ka rabtaa maxaa ka galay maxaa ugu hoynaysaa maxaa u dhibaataynaysaa waxaasnimo mid kaliya aniga ee yaabsi waxa waay maxay tahay sababta ay Soomaalidu oo dhigin arrintan maxaa looga aamusan yahay wiilkan yar ee afkiisa ku shaqaysto maxaa garab loo Soomaalida aw dhiig baan qabnaa iyo nin Soomaali laba dhibaateyn kaliya warkan ay Soomaali kuma tilmaami kari baniyo kan Soomaali kuma tilmaami kari waa wuxuu yahay magaranaa kan nimayo Soomaali wiilkan waa wiil yar oo talent leh dalka iyo dadka iyo dadweynaha ku soo baxay saas awgeed qofka shaqada uu shaqaysanayo haddii lagu dhibaateynayo leeyahay maxaad u shaqaysanaysaa oo lagu dilay waa dhibaato Daahir Cali Sow muhiimadda koowaad oo ninka u dhibaateynayo waxay tahay inuu ku soo hoos caanbuxo rabaa soo ka soo horbaxay ayuu hadda ka aansan wuxuu rabaa meel kasta u saayay inuu Daahir Cali Sow waa nin saasa Daahir Cali Sow waa nin balaaya Daahir Cali Sow waa nin maxaa ka galaya gacan ugu jirnaa adiga dartaada naloo haysta oo waxa waay wuxuu adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nur leh markii aan ka daba tagay aan dhahay war ka baqin waxba idinku ma sameyn karo waxa la itaha Ahmed Rashid aan dhahay waxa la itusay haddaba halkaa waxaan iga cadaatay Daahir Cali Sow inuu adeejistay nin la yiraahdo Ahmed Rashid waan wada garanaynaa waa nin ka tirsan ciidanka dalka Kenya misana dawladda dalka Kenya ninka asaga ayuu adeejistay si uu helo document-ka Sharma Boy oo dhan waa arrin aad iyo aad oo la yaab leh balan iska sii daawanay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyar Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo videogaas markii arkay ninka saaxiibkayga waa u baqaanay waa u baqay bis ninkii markaa waxa wuxuu igu yiri live soo gal way bari fahad waa bariye ninkii markaan bariye waxa waxa la isheegay ninka saaxiibkayga ahaa in la sii daayo deeq darajo markii la sii daayo waxa ku yiri saaxiib ka soo tag meeshaas waxa imaw jimeelkayga ninkii gacantiisa soo gale intii ma ku ere
waxaa deeq darajo ka soo tagay ilaahay deeq darajo iyo familkiisa iyo meeshii iyo gurigiisa iyo wixiisa iyo noloshiisa oo ka soo cararo oo anigu xabsi ku jiro uu garow ila imaado waxaa Soomaali wax ma fahansanin deeq darajo ku khiyaani waxyaabo noocaas ka hadlaya marka hadda waxay taagantaa waxay ugu halka haddii aan wax yar ka dhahno halka waxaa nooga caddaatay Daahir Calasow sidii uu ku helay passwordkii iyo gmailkii Sharma Boy inay ay tahay saaxiibkiisa u fadhiyay Nairobi gacantan ku hayay YouTube-ka Sharma Boy inay loo adeejistay rag kale kadibna loo soo qaaday gmailkii iyo passwordkii Sharma Boy uu soo yiri maqaaxida hebel baa ka soo dhaxalaya taas raganimo ma aha war Daahir Calasow taas raganimo ma aha ya Soomaalida markay wax aragto waxay doontaa iskaga hadashaa waa runtiis waxaa la lahaa darajo boy yaa khiyaanay oo passwordkiisa dhiibay oo Soomaalida waxyaalo maana yacni iskaga hadlaysay xaqiiqda lama hayo le marad kuwa qaar waxay lahaayeen ninkan waa nin balaayo ah Daahir Calasow waa nin maxaa ka galay ah ma garanaysaa social media intaas oo san kusoo dhex jira wuu dhacay wuu jabsashadeen ya balan sii wadana video كلف إن صاحب لو حوا نكى محل يراني هدي يوتيوب بس ويركي وحي ودن قعنتا كويستا أنت أكبر بقى ملا قعنتي ذين يوجران وحوا ما أنت كرتوني خبرت عني ولا الصومالي وأمت عني يوتيوب لسوفريست خوفنا من بريجرين حني يوجري الصومالي أسكبر نوري ويوجران وحوا ضعيف واي نرجع مع ماله هوسو كسواد لا ماله حتى يرتوح يوكلفه وحياة هاي إن codkii dad waxaa jiro oo dad waaweyn oo arrinkiina ogaadaan rabaan dad asxaabta kamid ah oo codad aan markii ana ka qabanayno iyo ana la wadaag ana diray waxa dad u diray waxa inay ogaadaan ada codadkii la soo dhigay YouTube marka message ani ninkaasi aniga YouTube-kayga iguma soo celinaysiis ay siinay YouTube-kayga xaniyi marka hore la iga qaaday la igu soo celiyay habeenada kamid ah anoo deeq isla jooga deeq telefoon ku hadlaaya arkay oo ninkaas Axmed Rashid Allah ka hadlay waxa Axmed Rashid ka telefoonka ka qaadnay deeq waxaan ku iray saaxiib adaa ninkaas ninka la yiraahdo Axmed Rashid u galiyay gacanta YouTube-kayga waxa waay hadeertaan adaa ninkaas saas waxa la yiraahdo iga heelay waxanan igama qaadi lahayn YouTube cusubaan aniga hadda sameystay YouTube kaasna waxa waa uma baahni laakiin xaqiiqada jirto waa ka soo hadlayaa baa ku yiri asoo siraftiisa dhoorayo oo ka baqaayo Soomaali Maxamed siraftiisa uga baqaayo Axmed Rashid oo YouTube-kayga ii soo celi intuu wacay anoo aan la baryo tamin aan wicin oo soo gala qadka ninka la yiraahdo heblaay hebelka Calasow markuu soo galay wuxuu yiri iyo kugu wareejiya sidii YouTube-kayga ugu wareejistay maxaa la yiraahdaa oo aan deeq darajo passwordkii wixii hadda ii bedelay bas markaas walaalnimo oo iiga codsado yiri maxaa la yiraahdaa ii soo gal YouTube waa ku bariya ii sheeg bas ina YouTube-ka kugu wareejinay aan bas aniga sheekada meesha ku ekaatay wax walba aan islaha sidii aan dhacday bas hadeertaan ala kulli xal muhiimada soo fariisa waxay tahay waan inuu tusaya baqashada lambarkiisana waa taqaanaan wuxuu soo diray waxa waaye xayaat ka jiro wacaya wuxuu leeyahay waxyaabo oo maxaa la yiraahdaa waa ku qaabinaya video waa ka duubaya kan uu duubaya meelaha hoose ee meesha ninka ragga laga marin oo naga soo maraya ma fahanti Soomaali Maxamed waxa uu sheegaya aniga horta cid aan ka baqayo ma laha YouTube-ka maanta haduu hawada ka baxo فكيو يوتيوب waxa uga baanay malahan waxa waan noolahay dad baa ka dhashay Soomaali Maxamed aan ka dhashay 20 jir ahay mar walba jaanis ah haysta aniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed waliba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeesi ku jiraan intooda badan gumeesi idinku waxay idin soo gudbiyaan farxada idin la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeesi intooda badan ku jiraan waa loo caagi jugleeyaa qaarkood video waa laga hayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dad loo adeegsadaa raga loo adeegsadaa ninkiina ilaa ay hadeertaan waxa dadku taagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay Sharma muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihiin hadeer sheekada weeb aamuste muxuu Sharma iyo hadana uga soo hadlay waxa waaye wuxuu uga soo hadlay dadku kala feeso naagu dhalay wali cagto noo saaraya waxa waaye hadana halka waxa ka cadaatay ilaa hadda inuu Daahir Calasow oo raggan cagta u saaray waliba wuxuu yiri Sharma Boy anaga si toos ah nooma soo aaday wuxuu si toos u aadaya meelaha hoose maaragtay sida dumarka haweenkii hooyooyinkii familkii caruurtii inuu dhibaateeyo oo waxyaalaha filmaanta aan ku arki jirnay Daahir Calasow film buu jilaya ya film ayuu jilaya
maxay tahay gabadha Soomaalida ee lagu cagajuglaynayo in video laga duubayo sharaf darro ah Soomaaliya miyaan dig lahayn gabadhan dad bay ka dhalatay dad baa dhalay wiilashan dad baa dhalay dad bay ka dhasheen ma hal nin baa Soomaali laga qaban lahayn waxa uu sheegay Sharma Boy oo dhanna waa sax fanaaniinta gacan bay ku wada jiraan kidigood ilaa hadda maana arkin hal fanaan oo Soomaali ah waa hadii hal oo fanaan oo Soomaali ah oo magac loo la aqaano oo intuu social media soo fariistay arrinta Daahir Cali Sow iyo Sharma Boy ka dhaxaysa ka hadlayo waliba asagoo eedeynayo Daahir Cali Sow lama hayo guddi qabiil wada jiraan nin kasta halka muka daawada fatashuru fil ard laga sii socdo waa cabsi laga qabo ninka asaga ciidan ma aha dawlad ma aha madaxweyne ma aha wuxuu yimar waa qashin wixii saasaha waa laga dambeeyaa waxa looga dambeeyo waa bulcadu adeegsanay marka Soomaaliya arrinta Sharma Boy hadda uu sheegayo waa arrin jirta oo sax sababtu u soo fariistay oo arrimahan uu sheegayo waa in wax laga qabto dareema aqliyeesha maskaxiyeesha arrintan in wax laga qabto ayuu u baahan yahay wuxuu yiri waad maqlaysaa YouTube-kiisa waxa lagu soo celiyay cabsi laga qabo video-gu maanta soo duubo inuu soo duubo laakiin kama dambaystu uu soo duubo soo fariistay dhibaatooyinkii horaan u geystay tu ka weyn bay isku dayaan hadii uu geystaan meesha laga soo galayna waa xagee Sharma Boy Muqdisho baa shaalaya Soomaaliya intuu joogo wax dhibaato u geysanay ma laakiin halkee laga soo galayaa saaxiibihiis walaalihiis familkiis asxaabtiis oo badankooda ku nool Kenya Daahir Cali Sow waxaan filayaa inuu qurbaha ku maqnaa laakiin xalay inay ahayd baan jeclahay waxaan arkay video Nairobi joogo marka bal video-gan aan iska sii wadano annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annaga naguma soo aadayo nooguma cagajuglaynayo meelo hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkii nagala maraaya dagaalada ciifeed cidiya hoosteedu nagala diraaya waxa inii sheegaa aniga hadeerta deeq bareejo walaalkayga waa isla joognaa waxa waaye ilaa iyo meel oo maxaa waaye ilaa iyo familkiis u baqaan heerkaas soo maraaya oo la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa inta loo idin diraaya oo aniga xataa la idhaa waa inta loo si loo baqayo Sharma Boy iyo Darejo Boy inay dhibaato loo geysto ayagoo dalkooda hooyo joogan ayaa leeyahay familkooda ay leeyihiin midba meel baan ku diraya macnaha meel baan ku diraya markii uu leeyahay macnaha halkan aad joogto aad baan kaaga cabsi qabnaa inuu Daahir Cali Sow dad soo adeejisto oo lagu diray meel kale aan ku dirayna waana macquul nin dalkiisa joogo oo cidooda joogo oo lagu guumaysanaa maartay nin oo wali uu guumaysanay nin aan waxba ahayn oo qashin ah qurun ah qabiilaysta ah wallahi inaan been ku sheegin hadii qori lidii wala Daahir Cali Sow li hostaajin lahaa soddon baan madax u gelnaa soddon waxa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo annagoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena loo ogyahay horumar ku sameeyayno dad haddana xagga joogo oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo free ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaabo ayna u dulqaadan karin fanaaniinta Soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dulqaateen waxa idin sheegay aniga qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilintan wax ay keenayo waxay tahay aniga hadii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aabtus waxa waa meel aan ka damqanayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar iyo xaqooda naga soo maraaya iyo meel aanan maxaa la yiraahdaa dad aan hadhoon eed aniga tusano koraysa oo dartiina wax walba noo gaaraan leey Soomaali Maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dib زائد فنانين Soomaaliyeed aniga u hadlay afka fanaaniintu ku hadlay waliba kuwa dalka ku sugan dhibaato زائد naga heesato xagaan iyo maxaa la yiraahdaa dadkan ku sugan dhankaas maxaa la yiraahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaynin Soomaali Maxamed waxa waaye waa ka raali gelinayaa xanaaqada kuleelka iyo hadalka aan ku hadlay waxa waaye arinka ina ogaataan arinkaas meesha uu marayo ninkaana uusan naga dabaharin agta oo noo saaray haddana waxa ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlay xaniisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walba aan ninkaas ina ka hortaga aadamco waxa ay soo hor istaagayo
waxa isoo hor istaagay Axmed Rashiid ninka nooyiilay ninka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay uga baqaysa ma aqaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadanayso ninkaas oo naga soo maray ninkaas markuu awoodi waayo deeq darajo cilmi kuma dhamo wallaahi oo bilaahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dhigin isku dhameen awood waxa u yeelan in YouTube-kiisa ahwada ka saarno uu naga soo weerarayo uu awood u yeesay deeq darajo uu ka daba tagay waxba uu naga qaadi waa asiga ilmaha xunka uu wato asiga waxa basabeeyo xaniimaha qol meeshaas ugu jira dadaa waxay ugu yeelayaan afaar qabiilka marka qof ugu yeelayso waa qabiilkaaga marka lagu qaldamo qofka qabiil loogu yeelaya laakiin inaan qabiil lahayn qabiil wax oogeen raganimo aan lahayn Soomaalnimo aan ku jirin oo waxba aan tareenin afkaas faar ka haayo oo isku diraahla qabiil ugu yeelaysaan waxa waaye waxa loo danqadaa qofka qabiil wax ka yaqaan qabiil oo waxba ka aqoonin naragu waxba ka aqoonin heerus waxba ka aqoonin waxa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed waxba ka aqoonin ninkaas noo jabiyay oo la yiraahdo Axmed Rashiid gacanta Soomaaliyeed bal video-ga aad buu dheer yahay halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa waa intii muhiimada ahay haddaan hal iyo laba ka dhahno arrintan Sharma Boy waxa uu nooga baahan yahay wax kala ma aha inay ninkaas lala fariisto lala xaaltamo la weydiiyo kaliya ninkan dhalinyarada wax uu ka rabo waxa kaloo meesha ku cad inuu uusan si toos isagu maarta ninka film buu jiraa war filmaanta fan project waa daawatay markii ninka laga cabsanayo si toos loo soo aadi karin inta la aada reerkiisa la daba mari ilmihiisa baa la dili xaaskiisa baa la dili waalidkiis baa la dili halkaas ninka laga jabin horta marka filmaantu uu ninka badsada u maayne wuxuu yiri saaxiibahay reerka naga familka naga caruurti wixii buu maartay jafaa halkaas la yara soo galaya marka kulli anaga muhiimadana waxay ahayd video-gan in aan ka hadalno inagana aad aragtaan waxaad ka dhigi kartaan aad ka dhahdaan comment-kiga wax allaala waxii aad u maleynaysaan inuu meesha ka jiro aad ka hadashaan video-ga aad si share garaysaan muhiimaddu waa intaas oo keliya marka sidaas iyo nabadgelyo iga tagaynaa waxaan leenahay maalinka ha nii wacnaado haddaad haween joogtana habeenku ha kuu wacnaado adigu waqtigaad daawanayso ha kuu wacnaado